damaanadna waa waay lacagna waa waay anoo hooyadeeda ah 21 cishana gabadheeda meesha iiga jirtaa الله أكبر قول والله بالله والله قوليستي هل ساعة كورة ينسوا قد بيه حرية قولي وين على يا ربا وقولك جيفكم كاكسو دقو هوس فليغا حق ميل سويمين بول حق ميل أصحابي وادي السلام يا ورنيكي ناصر عقاها هلا إيرادي بل نيكي ناصر عقاها ومالمهان مجاهد akoonkayga hadda haysto akoonkaas 1 milyan iyo 100 ii maray markii laga qaadanayay habeen anoo live ku jiro ayaa laga degsaday الله نباهن قب ما هاليري والله صاحب كان اسوى الوالد جري او دي جري ان isbitaalka yardameeriya lakee qanaad ilaa ana caloosha ka qalanaay ma socon karo mooto raac ma haysto qaxootigaas weedo waa deganahay 2 maalmood 3 maalmood kadib markaas soo booqdo lacagta 1500 ee gaartay muddo oo 21 cisho ee gabadheeda iga haystaan maalmahaas maalin ka mid ah way ii diideen inaa galo oo naaskaasi xitaa ilaa lacagtii aan bixiyo waa ka tagay $150 ah xaafadaha ka soo aruuriye u geeyay marka u geeyeen waxay dheen 150 kaas maalmaha kale ay sii joogi doontaa lagu daaweynaa ee 1500 waa laga rabaa mar walba amba aabaheeda laga rabaa amba damaanada keensanaysan amba 1500 keensanaysan gabadhan saas ma ogiye si kale lagu wadaayo male qofka aad dhaadad damiinan wuxuu ku leeyahay adaa qaxooti ah hadaa ku damiinta maxaa ku bixinay damaanadna waa waay lacagna waa waay anoo hooyadeeda ah 21 cishana gabadheeda meesha iiga jirtaa كنت إلهي وجهي سان كنت عرتي isbitaalladan fidnida ay keenaan iyo masiibada ay ummadda muslimiinta ay ka galayaan haddaan wax laga qaban dhibaatada ay keenaan muslimiinta oo dhan ay asiibi doonta wallaahi bilaahi maalintii dhaweed ay ahayd gabar isbitaalka hortiisa ku dhalaysa hadda waa tanaa 21 beri looga haystaa isbitaalka $1500 isbitaal yardameeri ma ilaahan kugu dhaashay qof muslima oo tabar yar oo kaam degan oo waxba haysan ma sidaas la dhihi karaa $1500 bixin cunugaagi ma lagu siinayo ma ilaahan kugu dhaashay waxaan dad loola tagi karaa qofkaas ma qof damiir lama ahamiya xitaa waxay u diideen in ay naas siiyaan ka hor bal dulmiga intaa la egfeeri war isbitaaladan shaqo laga qabto war isbitaalan qofkii furtay war ilaahay ka cabsada war saan xal ma ahan war aakhirada dambayso war lacagta yarka aad raadinaysa waxa ka baa intii kale ay soo goyso war dadka masaakiinta loo dhamriyo war masaakiinta loo dhamriyo war waxaan adduunyo ay aakhirada ka dambayso xisaabaha ka dambayso dadka ha ku qasbina inay miidiyaha imaadaan ha ku qasbina inay waxawaaye oohin aysan haynin inay ka keentaan ha ku qasbina in daruufta iyo waxawaaye dhibaatada ummadda dadka u geysaan war ilaahay ka cabsada isbitaalyaalow isbitaal ilaahay ka cabso war sidaan xal maan halkalkee aralka raadiya bisminki allahu akbar guul wallaahi billah waa lagu guuleystay hal saac ka hor ay idin soo gudbiyeen maamadan cunugeeda oo 21 beri isbitaalka yardameeri looga haysto markaas soo gudbina ka bacdana isla hal saac ka bacdi waa la soo daayay cunugii waa la sii maamadii iyadoo 1500 aan laga qaadin isbitaalka yardameeri shaqaalahooda iyagoo hindhaa xiranaya oo gabanaya oo kaamarada ka cabsanaya oo dulleysan oo cabsi zaid dareemayo ay siiyeen maamadii iyo ninka wiilka dhalayna isbitaalka waxaa cunugooda ka soo qaateen nabad ayaynu ku soo dhamatay baashan waa la qarxiyay warbaahinta aad ay u mahadsan qof kastoo social media isticmaalo share gareeyay wax ka dhahay ra'yigiisa ka dhibtay comment ka qoray aad u mahadsantahay warbaahinta ugu horeysa soo dubtay waxay ahayd shabeellaha soo dubtay dalsanna waxay soo gudbisay markii dambe iyadana cunuga lagu wareejinay marka aad ay u mahadsan yihiin warbaahintii ka qayb qaadatay war qof kastoo la dulmiyo media iskaan adig annagaa reaction ka bixinayno ka hadlayno waxaa arrintaada waxaa bushgareynayno guuleysta Soomaali ha noolaato waxay dheeraysay hiidka ku gaaray hiidka ma gaarin bal waxaan dhageysta waan in xishood ceeb carcar maraw xorriyad guri weyn aan la rabaa oo qolka jeefkum ka soo dago hoos fadhiga xagga meel swimming pool xagga meel lagu dheelo baalka boolka xagga gym gurigeena waxa rabaa inaan ka dhigto hotel weyn wallahi sidoo arkaysa qof soo jeedo riyona hadda hal su'aal bis ay weydiiyay qofku guriyaha gabadhan soo wareysan hal su'aal bis ay weydiiyay guriga hadda iyada ay ku nooshahay ee hooyada aabaheed ay ku nool yihiin ay ku dhalatay swimming poolka ay sheegaysa iyo meesha gymka iyo
meesha lagu wada ciyaaray ee geemamka lagu dheelay iyo 9 qolo iska soo horjeedo ma haystaan dheh. bal waxaa gabadha ay shees fiiri anigu waxaan rabaa guri 9 qolo oo iska soo horjeedo intaa leh jiim leh beer qurux badan leh balaa war hadda gurigiina ma leeyahay shaafta tiktok ka keentay aakarada ugu bixisaa karada gurigiin aalada la dhacaysaa marna bixisaa marna waxa waaye reest ahaan ugu qoraa anaga waxaas khiyaaligaasi beenta na shooysaa oo istaji balanka anaga ma geli karno beenta ay barbagandada tiktok ka hayso nagala tag waraa kuwan ku is haystay maahano warni tiktokan wallahi drama nagu wala wallahi billahi ni wallahi saaxiib waxaan drama ma idinka eed saaxiibayaalo ya dagaal oo run ah umleeyihiin be warni saaxiib ani waxaan rabaa ni tiktokan drama rabaa ni qof ani isku dhignaa rabaa ni ya ama gabar isku dhigni wallahi billahi oo drama sajilni wartidan tiktokan fuusto kasto la keena caadi u soconay ka hor ya ninkan labadan inay isku haysteen tiktok daraamada ay ka jilaayeen ma al gabadhi hadda waxay leeyihiin miya alaabta madax la isgelinaya ka dambeysma ay leeyihiin ama wadma ay ka fogo saaxib bas waa wax kasta dil keena qof tahliil haduu saamay tama aaminay oo ilaahay u geeyo ka baad bas waa akoonkayga hadda haysto akoonkaas 1 milyan iyo 100 ii maray markii laga qaadanayo habeen anoo live ku jiro ayaa laga degsaday xalay anoo gurigayga iska jiifaa Ibrahim Sabriis waxay soo wacay cunugan oo Ismaan Sabriis ay soo wacay wuxuu yiri akoonkaaga waa la helay nin weyn ah wato wuu ku shaqeyso Naasir Cige waxaan u leeyahay mar labaad in mar saddexaad horta alla ka cabsiga af kaliya ma aha horta akoonkaas waa akoonkayga in laga iibsaday iyo intii kale asiga laga rabaa inuu noo cadeeyo aywaanka 1 milyan iyo 100 ii maray markaan waa qiimo beesho wallahi billahi ninka horta fuusada ninka horta si guud ahaan waa iska fahmi kartaan oo nin iska dabaal awaaye nin fadhiyo ma ahan warbaahinta hadda bariis rays waa nasirkeeda bariiskiya waxaa waa shamuuri ka galay fuustadana hadda wuxuu u riixayo ninkaas kale ee hebelo ciga la sheegayo uu sii riixayaa ninkan waa la iskaga dhadheelaaniyo game caadiya waa mina wallahi billahi waxaa la soo sheega wuxuu taagan yahay Cabdinaasir ay soo wacay wuxuu u yiri niyo ninkaas ciwaankaaga 1 milyan u haystaa 200 ku darsoontay balaa wax uu kala ogyahay malahan waxa iga sii daran warbaahintii shamuurina hadda faal ugu jiraanba midaan oo warbaahintan soo duubtay ka bacdana hadana ninkii warbaahinka ka dabtay hadana way soo duubtayna wax amala oo ay haayaan ma jirto war dadka intay wax fiican u soo gudbin lahaayeen oo bulshada warbixin kala saameeyay ay keen lahaayeen hal nin oo fuusto lagu soo riixay oo xafiis meeshan uu fuusto soo riixay ay basi dabaqadooyaan waxay taagan yihiin shamuuri ciwaankiisa la qaatay war shamuuri ciwaankiisa dil qaatay awlkii waa la watay maxaa u hadlweyseen ninkaas hadda intaasoo kun oo qof yuuskiisu cirku ku jiro oo 1 milyan 200 oo wato oo baasha ay u kala kacsan tahay haddii ay wax soo duubaysaan awlkii maxaa soo duubaysaa meena ciwaanka hadda lama ku baraarugtay meena war saaxiibayaal saan sharaf iyo maani warbaahina sheegitiin waxa waa warbaahinta magacantaas ka dhaasay tiktok le iska noqdano reaction bixi anaga camala dhiiqeysta golofisada qaata waxa doontiin meesha ka sheegay qaysqisi iyo waxa noqotiin iyo waxa waa jeceelo iyo waxa noqotiin iyo kuwii xanta wareejina camal noqdano ya ma ay tahay warbaahin isku sheegtiin hal nin ciwaan u qaatay iyo waxa saafuusta ka raadinaysiin shamuuriga asna waaba everywhere waxba kuma jiraan wallahi billahi anaga tagaanayo asxaabay waa idin salaamayaa warninkii Naasir Ciga ahaa la ii raadiyay bal ninkii Naasir Ciga ahaa oo maalmahan magaalada shitay bal hala ii raadiyay asxaabay bal komantiga sheer halo dhaw Naasir Ciga war asoo qabana bal ya 2025 Xasan Toob maanan rag oo asaagiisa dalbanow waliba xitaa soo sariyada jiifo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un war mareykankii Xasan Toob dhaga xumo bare wallahi billahi war ninka maxaa ka dalbatay ninka maxaa u dalbatay ya jaajar ma u baahantay meena sababta u dalbatay maxay tahay wallahi billahi mareykankii waa lagu xalaaway saana ma noo dambeysay
2025 ninkii dhammaa youtuberka ah facebookerka in asaagiisa uu dalbado hal ii raadi uu dhahaa walla ana sheekada ma fahmin saaxib wallahi billahi alla nin baahan gob ma aha layidhi wallahi saaxiibkaan iswaalwaali jiray oo dhihi jiray sabtiga hadduu ilaahayna gaarsiiye waxaa maxkamada balansanahay balaa war waxaaniyo wallahi billahi adduunyada saaxib laaluusha lagu kala wadaaniyo war ninkii xogtiisa idiin soo ogaaday ninkii Soomaali gamer ahaa ninkii waa isqabteen ka bacda howshiisii hoosaa loo xaliyay waxaa ninkan uu ka qaldan yahay niyo raal iska ahaw waxaa 10,000 oo doolar iska qaado awalkiiba waxaa waa reerkeyga iska ahayd baahi daran ku haysay waxaa la niyo inta iska qaado maxkamadan iyo fuustadan iyo waxa aan ugu riixayso oo dhalinyarada caanka u dhiibayso oo waxaa meeshaas laga sii shargareynayo oo hadalheynta zaadka sameysay iga dhaaf anigana waxaa bariiskeyga dhiiqaha iga darin gabiga dhaalaano ilaan Soomaali gamer aniga waxa u maleeyay nin qadeeyo oo lacag fiican haysto oo baasha u fadhisa oo haysto wallahi billahi ilaan wuxuu dhahay kii halkii saaca aan ku jiro $1 ka sameey waxa xaasadaa maqsid ban ikadduwasa wallahi billahi Soomaali gamer baahi dhasho waa alhasil ninkan waxaa lagu qanciyay in uu laaluush qaato $10,000 uu qaato arrintaana uu ka dhacno sabtiga la balansanaa ahad isniin maanta waxaa isniin la marooga ogtiin maxkamadii wixii uu sheegayna hawda lagu cunno nin baahan go'aan mala wallahi saxaabo wallahi billahi ish Soomaali gamer saana ma ay saxaabo wallahi nin baahan go'aan malaan dhaaf